Bismillahirrahmanirrahim. Salaamullahi calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu. Saaxiibayaal daawadayaal rabadaan wanaagsan meel walba waa joogtaan iyo si walba muuqaalka iyo gudiin soo gaarayo halkaad inaga daawanaysaan waa barta aynu youtube-ka ku leenahay ee runsheeg. Saaxiibayaal qodobada ugu waaweyn aan warka idinkugu haynana waxaa ka mid ah madaxweynaha koonfur galbeed Cabdicasiis Xasan Maxamed Laftigaran oo Muqdisho u yimid dabarjabinta ra'iisul wasaaraha xilliga Hargeysa Maxamed Xuseen Rooble, ciidamada dowladda oo la wareegay deegaan u dhow Soomareeb iyo Ruushka oo gacanta ku dhigay rag u dhashay UK oo lagu qabtay dagaalka Ukraine. Qodobadaas iyo qodobo kale ayaan saaxiibada inagu xiran oo idiin soo gudbin doonaa hadduu Rabbi raali ka noqdo. Fadlan haddii aad nagu cusub tihiin waxaan si naxariis leh idinkaga codsanaynaa inaad subscribe noo saadhaan, like-na inagu dhiirigelisaan, gamaleelka furataan si warbixinadii ugu dambeeyay aad u heshaan idanka alle. Saaxiibayaal sidoo hordhac warkayga baad ku daawateen haddaynu ku bilowno. hogaamiyaha koonfur galbeed Cabdicasiis Xasan Maxamed Laftigaran ayaa soo gaaray magaalada Muqdisho si uu dabarjabin siyaasadeed ugu sameeyo ra'iisul wasaaraha xilliga Hargeysa Maxamed Xuseen Rooble, sidoo kalena uu ugu guuleysto kursiga Fahad Yaasiin iyo sidoo kale doorashada guddoonka golaha shacabka. hogaamiyaha koonfur galbeed Cabdicasiis Xasan Maxamed Laftigaran oo ka guuleystay kol hore ra'iisul wasaaraha xilliga Hargeysa Maxamed Xuseen Rooble ayaa hadda u yimid magaalada Muqdisho si uu u soo jiro ra'iisul wasaaraha xilliga Hargeysa Maxamed Xuseen Rooble kaasoo doonaya in uu doorashada guddoonka baarlamaanka uu ka reebo rag oo Cabdicasiis Xasan Maxamed Laftigaran oo booskaasi la rabo. sidoo kale Cabdicasiis safarkiisa ayaa warar soo baxaya waxa ay tilmaamayaan in uu daaran yahay si uu guul uga hoyiyo guud ahaan doorashooyinka dalka. Cabdicasiis Xasan Maxamed Laftigaran ayaa saaxiib dhow la ah madaxweynaha qaranka mudane Maxamed Cabdullaahi Farmaajo, sidoo kale la taliyaha amniga qaranka Fahad Yaasiin Xaaji Daahir, taasoo culayska ku badinaysa ra'iisul wasaaraha xilliga Hargeysa Maxamed Xuseen Rooble. garoonka diyaaradaha magaalada Muqdisho ee Aadan Cadde ayaa wafdiga madaxweynaha waxaa ku soo dhaweeyay xildhibaanada labada aqal ee baarlamaanka Soomaaliya, wasiiro iyo qaybaha kala duwan ee bulshada ku dhaqan caasimada dalka. Cabdicasiis Xasan Maxamed Laftigaran iyo ra'iisul wasaaraha xilliga Hargeysa Maxamed Xuseen Rooble ayaa waxaa ka dhaxeeya dagaal aad u weyn kaasoo ku qabtama doorashooyinka dalka, isagoo kol hore 3 xildhibaan oo laga soo doortay koonfur galbeed isku dayin ra'iisul wasaaraha xilliga Hargeysa Maxamed Xuseen Rooble oo isbaaro u dhigto, balse hadal ka soo yeeray Cabdicasiis Xasan Maxamed Laftigaran ayaa dhabaha u xaaray in la sii daayo 2 ka mid ah kuraastaasi, sidoo kalena ay magaalada Baydhabo ku soo laabtaan xildhibaanada laga soo doortay magaalada Baydhabo iyo sidoo kale Baraawo si uu u tusiyo ra'iisul wasaaraha xilliga Hargeysa Maxamed Xuseen Rooble inuu haysto awood xildhibaanada baarlamaanka ee koonfur galbeed. safarka hogaamiyaha koonfur galbeed Cabdicasiis Xasan Maxamed Laftigaran oo ku yimid magaalada Muqdisho ee caasimada dalka ayaa ku soo aadaya xilli isbuuca soo socda magaalada Muqdisho ee caasimada dalka lagu dooranayo guddoonka labada aqal ee baarlamaanka federaalka ee Soomaaliya, taasoo Cabdicasiis Xasan Maxamed Laftigaran uu doonayo inuu ku guuleysto midda guddoonka golaha shacabka si ay dhabaha ugu sii xaadho guusha madaxweynaha qaranka mudane Maxamed Cabdullaahi Farmaajo. madaxweynaha koonfur galbeed Cabdicasiis Xasan Maxamed Laftigaran oo saaxiib dhow la ah madaxweynaha qaranka mudane Maxamed Cabdullaahi Farmaajo kana shaqeynaya dib u doorashadiisa ayaa wararku waxay tilmaamayaan in uu olole xoogan u geli doono musharaxiinta ay villa Soomaaliya u rabto qabashada guddoonka labada aqal ee baarlamaanka federaalka ee Soomaaliya oo isbuuca inagu soo aadan ee dhacayso doorashadiisa. magaalada Muqdisho ayaa la ciirciiraysa kaasanaanta xiisada siyaasadda oo halkaasi laga dareemayo. waxaa shalay sidaan oo kale magaalada Muqdisho ee caasimada dalka u yimid madaxweynaha maamulka Hirshabelle Cali Guudlaawe Xuseen oo la filayo in uu olole weyn u galo doorashada Fahad Yaasiin ee kursiga gudoomiye ku-xigeenka koowaad ee baarlamaanka golaha shacabka. waxaa sidoo kale asna Muqdisho la filayaa inuu soo gaaro madaxweynaha Puntland Siciid Cabdulaahi Deni, kaasoo ah musharax u taagan xilka madaxtinimo ee Soomaaliya. Siciid Deni ayaa hadda dareemaya culaysyo siyaasadeed oo kaga imaanaya maamul goboleedyada Hirshabelle, koonfur galbeed iyo sidoo kale Galmudug, kuwaasoo cadaadis ku saaraya hogaamiyaha Puntland inuu isaga haro doorashada maadaama dhammaan amaba intooda badan xildhibaanada halkaasi laga soo doortay
oo ay codka siin doonaan maalinta doorashada madaxweynaha qaranka mudane maxamed cabdulaahi farmaajo. Siciid Dani ayaan lahayn saaxiibo siyaasadeed maadaama uu saaxiibadiisii siyaasadda hore khiyaanay. Madaxweynaha Koonfur Galbeed Cabdicasiis Xasan Maxamed Laftigreen oo ah hogaamiyaha akhriya siyaasadda Soomaaliya aadna ugu dhow madaxweynaha qaranka mudane maxamed cabdulaahi farmaajo ayaa la rajeynayaa in uu ku soo baxo qofka uu la rabo guddoonka golaha shacabka ee baarlamaanka federaalka ah ee Soomaaliya. Qodobada kale aan saaxiibayaal idiin haynana waxaa ka mid ah ciidamada dowladda ayaa la wareegay deegaano u dhow Dhuusamareeb. Ciidamada dowladda gaar ahaan kuwa sida gaarka ah u tababaran ee Gorgor ayaa howlgalla ay ka sameeyeen oo kula wareegay deegaano dhowr ah oo hoostaga magaalada Dhuusamareeb ee caasimadda Galmudug oo horey ay u joogeen Al-Shabaab. Taliyaha xasilinta Galmudug Cabdi Maxamed ayaa sheegay in dagaal la'aan ay Al-Shabaab kala wareegeen deegaano ay ku sugnaayeen isla markaana ay Al-Shabaab dadka ku dhibaateyn jireen. Sidoo kale sheegay taliyaha in howlgallada ay weli ka sii socdaan deegaanada hoostaga magaalada Dhuusamareeb oo mararka qaar amni darro ay ka geystaan ururka Al-Shabaab. Deegaanada ay ciidamada Gorgor maanta la wareegeen ee duleedka magaalada Dhuusamareeb ayaa waxaa dhowr jeer weeraro ku soo qaaday xubno ka tirsan ururka Al-Shabaab. Qodobada kale aan saaxiibayaal idiin haynana waxaa ka mid ah dowladda Ruushka ayaa gacanta ku dhigtay rag u dhashay UK oo lagu qabtay dagaalka Ukraine. Dalka Ukraine uu ka socdo dagaal xooggan u dhaxeeya ciidamada dalkaasi iyo kuwa Ruushka ee duulaanka ku qaaday ayaa waxaa ku biiray dagaalyahano ka kala tagay wadamo kala duwan oo gacan ka siinaya ciidamada Ukraine. Ruushka ayaa horey u sheegay in dagaalka ay ku digeen dagaalyahano ajaanib ah oo ka barbar dagaalamayay kuwa Ruushka, waxayna sidoo kale sheegeen inay gacanta ku dhigeen oo kuwo kale oo ka soo jeeda wadamada reer Yurub. Muuqaal ay baahiyeen warbaahinta Ruushka ayaa lagu soo bandhigay laba dagaalyahan oo la sheegay in ay ciidamada Ruushka ku qabteen dagaalka Ukraine kuwa oo ka soo jeeda boqortooyada UK. Labada nin ee la qabtay oo ay ciidamada Ruushka ku qabteen ayaa da'dooda lagu kala sheegay 48 sano jir iyo sidoo kale 28 sano jir, waxayna ugu baaqeen ra'iisul wasaaraha dalka UK inuu gacan ka geysto sidii ay dib ugu heli lahaayeen xorriyadooda. Muuqaalka laga duubay raggan ay ku dalbadeen in lagu bedesho siyaasiyiin Ruushka taageersan oo ku jira xabsiyo ay maamusho dowladda Ukraine, waxaana ragga ciidamada Ruushka ay gacanta u geliyeen wajigabax ayaa ka muuqday ciidamadaasi. Waa saaxiibayaal intaas ayaan kusoo gabagabaynaynaa warkaad ka daawanayseen Runsheeg TV. fadlan haddii aad nagu cusub tihiin waxaan si naxariis leh idinkaga codsanaynaa inaad subscribe noo saadhaan, like-na nagu dhiirigelisaan, gambaleelka furataan si warbixinadii ugu dambeeyay aad u heshaan idinka.